بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن ميل كستو aad ku sugan tihiin halkani waa Ottawa waa caasimadda dalka Canada iyo Sama Media maanta waxa aynu ku sugannahay jaamacadda Carleton oo kamid ah labada jaamacadood ee ugu waaweyn dalkan Canada waxana ila jooga oo aan wareysigan ka qaadaya Cabdirasaaq Cabdillaahi Shabeel oo kamid ah odayaasha aqoonyahanka magaaladan si weyn looga yaqaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa aha ciyaartooy imikana xildhibaan noqon doona Cabdirasaaq soo dhawow kuna soo dhawow Sama Media Cabdi Xaafid waa ku dhawahay aadna waan kaaga mahad celinayaa inaad uga casuunto inaan ka soo muuqdo bartaada mar labaad waan kugu soo dhaweynaya magaalada Ottawa iyadana waan kaaga sii mahad celinayaa waana mahadsantahay baa waan ku dhawahay barnaamijka adiga duubeyso waa hagaag ugu horeyn Cabdirasaaq Cabdillaahi Shabeel waa kuma Cabdirasaaq waa marka hore nin horta muslima oo Soomaaliya oo haddana ah reer Somaliland ku dhashay magaalada Hargeysa wax ku bartay ku shaqaystay ku guursaday runtii inta ku leekaaday kadibna nabar ku dhacay awgeed uu ka soo kaxeeyay oo aan ku yimid dalkan Canada Cabdirasaaq goormaha ayaa dhaawacan ku soo gaadhay walaal Cabdi Xaafid dhaawacan wuxuu soo gaadhay 2019 bishii June 17keedii habeen salaas ah anigoo kubad ciyaaraya ayaa nabarkan igu dhacay oo madaxayga oo aan aad u ordayo ayaa nin kale laabtiisa ku dhacay marka sidaasaan horta uga jabay nabarkan inta leeg ee dhibaatada ii geystay baana igu dhacay walaalo waqtigaas aan ahayd walaal waa tahay marka qoorta ayaa meeli wax ka gaareen dad badan oo Soomaaliyeedna ma yaqaanaan bal noo sheeg halka ay wax ka gaareen qoorta iyo haddaan ku faahfaahiyo walaal aniguba markii hore caafimaadka qabay waxba kama aqoon nabarkan igu dhacay laakiin maalintii igu dhacay baan baaritaan badan sameeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo quraankiisa inoogu sheegay xilo fi anfusikum afla tubsirun macna naftiina meedaan arkeen in badan nafteena uma fiirsano laakiin haddaan u fiirsano wax badan cajaayib ka imanaya dhaqaatiirtu ma wax ka yaqaanay cidi baratay dhakhtarnimada marka anigu baaritaankaasi waxa ii soo baxay laf dhabarta aynu leenahay waa 430 aba 530 shan kamida oo runta ay yiraahdaan afka qalaad coccyx ma dhaxmaro wax xariga ay af Soomaaliga u naqaan xangulu ma dhaxmaro 9 kale ay u dhaxmaraan marka 9 kaasi qolooyinka dhaqaatiirtu amba saynisyahanadu u qaybiyeen qaybo marka inta u sareysa waxa yiraahdaan 1 ilaa 8 oo C amba 1 ilaa 7 oo C bay yiraahdaan 1 ilaa 2 alif T bay ugu magacaabaan 1 ilaa 5 L bay ku magacaabaan 1 ilaa S na waxay ku magacaabaan S bay ku magacaabaan marka aanu inta saraan ka jabay marka hadba meesha aad uu nabarkaasi ka gaaro inta ka hooseysa qofka bilaadanku isagu mana maamuli karo dareena inta badan kuma yeesho marka walaal iyadoo kooban nabarkii ku dhacay waa inta walaal Cabdi Xaafid waa hagaag Cabdirasaaq Shabeel markii dhaawac ku gaaray waxa lagu geeyay cusbitaal ku yaala magaalada Hargeysa wax badan lagagama qaban kadibna Hindiya ayaa lagu geeyay Hindiya kadibna waxa soo baxday in Ilaahay qadaray inaad timaado magaalada Ottawa ee dalkan Canada maxay dalkii in wax lagaga qabto inay adkaato maxaa kalifay nagoo inta badan inay iska cusbitaaladeenu xaalkoodu xal yahay waa su'aal muhiim ah dhaqaatiirteena dalka jooga waxay la tacaalayaan xanuunadii kale xanuunkan oo runtii caalamka laftiisuna la dhibaataysay inay wax ka qabtaan heerka may gaadhin taasaana kaliftay oo waliba dadaal badan ay ka muujiyeen oo ahaa inay soo saaraanba MRI-ga in la helo waddankeena laga helo ayaaba chance ahayd oo la ogaado in nabarkan igu dhacay markaana ma qaban karaan qalliinka laf dhabarta may qaban karin waqti xaadirka sida awgeed baa la iga soo kiciyay dalka waxa la keenay India and Ethiopia caasimadiisa Addis Ababa dhakhtar la yiraahdo hospital Korean hospital la yiraahdo isaga laftiisu laba qalliin baan ku marnay abiy guuri waan ku qanci weynay sidaas India la igeeyay oo qalliin fudud la sameeyo xagga qoorta marka wax yar implant la yiraahdo aan ahayn plastic amba aan ahayn bir aan ahayn baa la igu rakibay sidii anigoo runtii jimicsi badan la ii sameeyay oo badbaaday ayaa markii dambe Canada la keenay marka saasan Canada iyadana ku yimid Canada maxaad isleedahay Cabdirasaaq markaas caafimaadkaagii in intee leg ay ka qabatay
hal shay baa horta u muhiimsan dadka xanuunkani ku dhaco inay ogaadaan amba la baro waa qofka in la baro inuu kelidii shaqaysan karo ay afka qalaad ku yiraahdaan inuu noqdo independent inuu noqdo inaanu noqon dependent qof cid ku tiirsan inuu noqdo ka kaco inaan kursiga fooli karo inaan wax karsan karo hatta waa nimanka maraya dadka noocaas disable-ka ama naafada in ay madbaxooda tagi karaan wax karsan karaan ay ugu taageereen marka nimankan waxay u tuseeneen ka faa'iiday inaan iyaga kamid ahay amba inaan kamid ahay oo sideedii hore aan la mid ahay wax qabsan kara ay tuseen taasi waa mentality ugu fiican waxna aad qabsan karto wax qabsan karo waa taasi ka faa'iiday dalka waa hagaag Cabdisaaq waxaad ahayd nin ciyaaryahana waxaad ahayd nin firfircoon Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland si aad looga yaqaano shirkadii Telesom ayaan rajaynayaa 19 jir ayaad shaqo ku bilowday ilaa ay intii dhaawac ku gaarayna waad shaqaynaysay sidoo kale kubadii waad u ciyaaraysay kooxdii ciidamada haddaanan saxsanayn in hal mar dhaawacaasi kugu dhaco oo dabadeetana wax badan oo aad qaban jirtay ay istaagaan dareenkaagu sidee ayuu noqday dareen weyn buu noqday xanuunku markii ku dhacay waxaan islahaa waa lagu soo daweynayaa deetana waad iska kacaysaa marka aqoon badan uma lahayn dadkeenuna waa sida oo la yaab male markaan ogaaday xanuunku culaysku uu leeyahay waxaan isiri waa inaad ku sabirtaa xanuunkan ku gaadhay dabadeetana ilaahayna subxaanahu wa tacaala xikmad cabdixaafid cajiibaan kuu sheegayahay ilaahay maalintul xaadkayga iga qaaday firfircoonideydii ilaahay wuxuu yidhi Cabdisaaq oo adu Hargeysa joogi maysid iyo Soomaaliland dabeetana ilaahay wuxuu keenay Canada wax xikmad baa ku jirta waad ka warhaysaa Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland iyo magaalooyinka Soomaaliyeedba waliba Hargeysana waa magaalo buuraley oo kala dhaadheer adeegyada dadka isticmaala wheelchair-kana mabalaha mid iyo laba wala laga yaabaa in laga helo maxaad imika Hargeysa marka u tagaysaa Hargeysa waxaan u tagayaa sidii imika baan ka dhawaajinayay waxaan isiri noloshii aad heshay ee ilaahay ku siiyey adiguna hala bakayline intii lagu sheegay in leeg u sheeg walaalada Hargeysa jooga urur baan sameeyay markaa waxa la yiraahdaa ururka Africa Spinal Injuries Association baa la yiraahdaa waxaan magacana ugu bixiyay Africa oo dhan baa ka aradan in ay dadka naafada ah wax badan la qabato dadkeena markaan u sheegno waxaan rabaa wali ismay baran dadkeenu inta caafimaadka qabtay iyo inta naafada isma taqaan wali anu laakiin caafimaadna waan soo arkay naafadiina imika waan arkay waayo qofku markuu naafada ku dhasho ama naafanimada ama baahiyaha gaarka dee caafimaad iyo socod waxba kama yaqaan taasoo buu garanaya ku dhashay dareenkiisuna uu qaba hawlana uu qabsan karaya laakiin qofku isagoo soconayay oo nin weyna marka la yiraahdo waad fadhiisato kursi baad isticmaalaysaa kursi ciyaar seen uu naqaano ceeb maaha dee waad garan kartaa isbedelka inta leeyahay qofku dareemayo markaan aanu dareemay laakiin waxay aniga igu dhalisay oo isiri war xikmad baa ka dambaysa sababtan ilaahay ku curiyaaminayay waa inaad dadkan iyo dadkan isbartaayo dalkii ku noqo maanta aanay in badan rajaynay inaan ku noqdo dalkii baan ku noqonaya si aan dadka isku baro bal at least waxa u yar ee loo qaban karo in la wacyi geliyo iyo in loo ogolaado bal dadka goobihii wax laga cunayay goobihii wax laga baranayay goobihii ay ku cibaadeysanayeen in iyagana loo ogolaado ilaha kalena waa la gaari karaa mustaqbalka in la sameeyo gawaadhi iyaga u gaara meel u gaara ku ciyaari karaan tartamo loo qaban kara iyaga marka goob kasto ay ka dhacayso amba xaflad ha noqoto maanta Soomaaliland ay qabsanayso amba mid ay shirkadu qabsanayaan amba mid ay organization goonida qabsanayaan ha noqoto in loo sameeyo meel ay ka geli karaan ay meesha ay u fududaato intaas wala u tagaya Cabdisaaq waxa ka jira guud ahaan imika Soomaaliland urur badan oo naafada ah oo in badan iyaga laftooda dadaal ugu jiray sidii adeegyada bulshada wax isbedel loogu sameyn lahaa oo kor loogu qaadi lahaa
ilaa iminkana wax badan oo guulo ay ka soo hooyeen ma muuqato ka Cabdirasaaq ahaan maxaad adigu isleedahay qolada waad kaga sii kordhin kartaayo waa lagu dhageysan doonaa haday noqoto dawlad iyo ganacsato iyo bulshada taan isleey waxa weeye anigayga Cabdirasaaq ahay horta weligay maan arag ninaan isku kalaas ahayn amba isku magaalo aan ahayn oo intuu gaaray 30 jir 25 jir active ahaa magaalada laga yaqaanay oo intuu dhaawacano kale ku dhacay ummadda u yimid oo soo hor istaagay oo dhaawaciisa noo sharaxay weligay maan laakiin maanta Hargeysa iyo in badan oo i garanaysa waxay fursad u heli doonaa anoo Cabdirasaaq oo i garanayeen oo magaalada ciyaartay ka ahaa shirkadii ugu weynaa ka soo shaqeeyay tujaar badan oo dalka is yaqaana siyaasiyiin badan oo dalka is yaqaana maanta inaan ku soo noqdo anoon xishoonayn way maxaan u leeyahay anoon xishoonayn inagu maanta xanuunada weyn isku caynaa wala dabeetana qofku xanuun kasta ku dhaco uu qarsanaya wuxuu islee waa lagu caaye nimankii ha u tagin magaca ku sameyn la anoon taa ka baqanayn ayaa waxa rabaa anoo shalay ordayay active ahaa inaan ku noqdo iyaga oo aan kaga duwanaado anu naafanimo kuma dhalan anigu hadana dhaawacani gaaray ismaan qarin qodob kalena wala lagu jiraayo anigu dal baan imid maanta dadkoodii habaystay oo hagaajiyay oo aan qofka naafadii qofka kale aanay waxba ku kala duwaneyn saan ku sheegay xataa inuu wax karsada lagu train gareynay marka anigu dhiirigelinta aan wado ayaa ugu muhiimsan wax maanta lacag oo wada ma jirto wax kale qoloban ku kordhinaya maanta ma jirto laakiin waxa raba maanta in horta ay isbartaan dadku haddii aynu u soo noqono safarkaaga oo aad insha Allah aad Britain baad baxayso waxa kale oo doona jirta inaad doonayso inaad u tartanto golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa rajay inta leeg ayaad qabtaa inaad ku guuleysan karto oo aad xubin ka noqoto golaha deegaanka mahadsanid Cabdixaafid horta waa laba su'aalood oo muhiim ah soo kay raacisay runtii waan ka fikiraya anigu haddaan mid ka horeeyo aniga safarkayga waxaan ka tirsanaa bax cajiiba bahdaasi anigu waqti hore soo maray waa bahda sportska markaan booliska u ciyaari jiray waxaana la oran jiray qolada sportska ee ciyaaraha kubadda cagta teamka fanaaniinta teamka baamboyda saddexdeeda waxa la isku oran jiray teamka wacyigelinta haddaan agtayada amba aanan ku dhiiri gelin baan anigu qabaa dhalinyar badan way tahriibi lahayd dhalinyar badan waxay baran lahayd balwadahay baran lahayd marka waxaan ka soo qayb qaataan ku leeyahay macna inaan bulshada soo dhiso qayb baan ka maadaama aan wacyigelinta qaybta sportska ka qaatay ninkaan uu leeyahay baa yimid oo Nigeria aad baa loo soo dhaweeyay laakiin markuu arko kaanu sida la ii soo dhaweeyay hadhow waxa uu jawaabi doona nimankii sportska waxa oran doonaan kaanuugeygii reer Hargeysa ayaa nooyin oo sida awgeed baan u soo dhaweynaa marka qolada sportska u taala Hargeysa iyo soo dhaweynteedu insha Allah taatan ku leeyahay asxaabtaada Toronto ilaa shalayto intii aan kula joogay waxa bay kugu yeerayeen xildhibaan sidii aad ku guuleysatay qaarkoodna waxa bay lahaayeen golaha deegaanka Cabdirasaaq Malaayino xataa golaha baarlamaanka galaabay ahayd ka waran inaad golaha laftiisa ku eegto baarlamaanka horta waa su'aashan doonayaan u soo noqday yadana anu baarlamaan ma doonin baarlamaan imika aad waxa u sii kharibay mushaharkiisa laga sheekaynayo waan hore loo ogaan jirinba runtii waa niman wax badan qaban lahaa laakiin inta badan iyagana khilaaf kaga dhamaado waa meel aad la isku feedfeedayo anigana maanta waa ii muuqata physically inaan isbedelay marka anigu fairness ka xajin kari maayo wax kale iska xajin kari maayo laakiin waxa ku wanaagsan anigu arrimaha socialka inaan ka shaqeeyo oo awalba waxa ka shaqeyn jiray oo ka qayb qaadan aan qayb ka aha dadka masaakiinta ah iyo dadka soo wax loogu qabto aanu soo daadego waxaan ku kalsoonaanayaa oo aan jecelahay markaan Hargeysa tago inaan shaaciyo xaflad weyn oo aan ku shaacinayo inaan doonayna ka mid noqdo 17 xildhibaan ee la dooran doono anigu markaa Cabdixaafidow sababtaan isku sii sharaxayaan waxa weeyaan anoo ka tageyn maanta qabyaalad baa waddankeena wareersi intaynu qabyaaladda ka tageyn aynu qabiil sax ah u gudbayno aynu nidaamkeenu dhiganay iyo sharciga dastuurkeenu sameeyay aynu u deynayna dalka oo odayaashu u deynayaan bulshadu inay kala saarto inamada laakiin maanta odayaasha kala saara haddana ka tagmay odayaashu waxaan leeyahay haddaad maanta xataa igu tiraadaan Cabdirasaaq oo joog kuma naan dooranay anigu warta waan joogayaa baan u sheegayaa laakiin hadda iyaguna aqbalaan anigoo og maanta bulshadaydu inay garab siinayso haddana odayaashu waan u sheegayaa inaanan ka tallaabsanayn waayo waa cunfi iyo arrin inoo yaala waa curfi baan u jeedaa waa curfi inoo yaala oo u baahan in laga tagay gabagabadii anigu aan su'aasha kaga soo tagay waxa walaal adoo raaliya waxaan anigu maanta xildhibaanka kaliya ee kursigiisa wata sheekada waan ka sheekayn doonaa
anigu ma yahay xildhibaanka curyaanka kaliya xildhibaanka naafada kaliya ma yahay magacyadaas waa magacyada aan u baahanay in meesha laga saaro anu maanta waa ka sii saaray waxaan xildhibaanka kaliya wata maxay kursigiisa waa magac aad u cajiiba oo aan kaga duwanaan doono iyagana kuwa halka joogana magacyada loo bixiyo sida ay tahay balaayo ilaa aati amba lug la'aatay amba dhakaweyne amba laangare amba lug yare waxaasina waxaan u tagay umadeena in laga daayo waayo shalay aad caafimaad qabay ilwaad waayi karta lug baad waayi karta marka magac adiga lagu bixin doono hadhow si bixsan baan kule waa tahay Ottawa iyo guud ahaan Canada asxaab aad u qiimo badan ayaad ku leedahay ma sha Allah ila shalayto intii aan anigu joogay barbar kaaga taagnaa maxaad leedahay asxaabtaada reer Canada gaar ahaan Ottawa horta waxaan u horeysiinayaa adiga ku horeysiinaya barakallahu fiik ingiriiska aad nooga timid Cabdi Xaafid runtii in badan baad dhagahayga war ku sheegi jirtay waan ku faraxsanahay inaan kulan isku barana maanta Cabdi Xaafid oo mahadsantahay Khalid oo runtii hotelka waxaan jira restaurantka ugu wanaagsan ee mulkiilaha wanaagna ninka tortay maanta maqaayadaha ka soo qaday isagana waynu mahadnaqaynaa Cabdi Basid runtii oo marna nin reerkiisa marna reer Burcaan waanu mahadnaqayaa Cabdillahi Yare siyaasiga daadayar waanu mahadnaqayaa halkan hadaba idinku maadaama aad torto ka timaadeen gooni baan idinku mahadnaqayaa qodada reer Ottawa waa dhalinyar fara badan dhammaantood ma soo koobi karo waanu mahadnaqayaa sida aniga halkan iigu soo dhaweeyeen niman badan oo waxa jira reer Canada iyaguna Edmonton joogaan u mahadnaqayaa halkan oo ninkii Dr. Yusuf la yiraahdo in farxaan la dhaw kamid yahay Abdirxiin Sheekh Cabdillahi in la yiraahdo Khalid uu kamid yahay in la yiraahdo Saad ay kamid yahay Maxamed Yare dhammaan nimankaas oo mahadnaqayaa reer Ottawa waxaan ka xusayaa aad waxa iigu soo dhaweeyay Ottawa nin la yiraahdo Ambassador Sheekh Xasan la yiraahdo oo runtii in qiimo badana baarcad oo igu yimid meesha oo isna i garab galay oo ah saaxiibkayga iyo weheliyaha Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil la yiraahdo runtii nimankaasi Cabdikariim Cali Henry waxa soo dhan waan aad baan ugu mahadnaq waxaan kala mahadnaqayaa Umar oo walaalkaygii gaaraya oo runtii inoo saamaxay inuu barnaamijkan inoo qabsoomana isaga aad baan ugu mahadnaqayaa fariin kale waxaan u sii dirayaa qolada igu suga saargiisa waxaan leeyahay Ilaahay nabad qaba isku keeno war badan weyn iswaraysan doona ciyaartaygan waxaan leeyahay kulli fariin wada daawan doontaan barnaamijkee waxa la idigu sugaya kaalintiini aad muujin lahaydeen inaga isku baahayn tolosomna halkan aad baan uga mahadnaqayaa waayo waa qolada geysatay inaan ka qayb qaadatay ee asturtay ee dhamaanteen in asturtay inaan Indiya imaado inaan halkan imaado iyagana aad baan uga mahadnaqayaa iyagana tartan baan hadiyo jeer bariga u qaban jiray taana dhaawacmay tartankiina way iigu magac dareen markasta imikana aniga ila sugaya Tolosom groupna waxa la kaalintiini iyo soo dhaweyntiini waa mid aan sugayo waan mahadsantii aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Cabdirasaaq Cabdillahi Shabeel inaad noqotay wareysigii ugu horeeyaan ku qaado magaalada Ottawa amaba sida aad idinku tirahdaan Ottawa aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqayaa intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaa wareysigii gaarka ahaa ee aynu la yeelanay Cabdirasaaq Cabdillahi Shabeel oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa noqon doona soo socda insha Allah asxaabta Hargeysana waxaan leeyahay u diyaar garooba Cabdirasaaq Shabeel iyo socdaalkiisa barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Ottawa iyo Samameelina intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa inta ay mar kale kulmayno haddii Ilaahay ka noqdo waaniga Cabdi Xaafid assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh